madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa mar uu xafiiska sare ee aqalka cad ku yaala kula hadlayay warbaahinta ugu baaqay inay iska casisho senator Ilhan Cumar xubinta xildhibaannimo ee Koongareeska dalka taasoo keentay qoraal loo arkayay Yuhuud nacayb oo ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay baraha bulshada. madaxweyne Trump ayaa khudbadiisa ku soo qaatay in shakhsi Yuhuud nacayb uusan marnaba ka mid noqon karin Koongareeska sidaa darteed waxa uu ugu baaqay Ilhan inay iska casisho xubinimada Koongareeska ama guddiga arrimaha dibadda oo ay ka tirsan tahay. garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah garyaqaan Soomaaliyeed aadna looga yaqaan gobolka Minnesota ayaa waxa aan weydiiyay sharci ahaanta hadalka madaxweyne Trump iyo saameynta uu yeelan karo. cabdixakiin waxaad su'aashan aad weydiisay in madaxweyne Trump uu ku baaqay in xildhibaan Ilhan Cumar ay xilka iska casisho ama ugu yaraan ay ka tanaasusho xubinnimada ay ka mid tahay guddiga arrimaha dibadda. sharci ahaan runtii wax salle ma aha sababtoo madaxweynaha sida dadka muwaadiniinta oo dhan ay fikir ay u gudbin karaan ayuu fikir Ilhan ugu gudbin karaa waxa uu ka qabana uu cabiri karaa hase ahaatee arrinta uu isagu soo gudbiyey ama uu ku baaqay ama uu ku talinayo wax raad sharciyeed ay leedahay haba yaraatee ma jiraan. qofka xildhibaanka dastuurku wuxuu qeexayaa qaab xilka ay kaga tegi karaan. dastuurku wuxuu qasbaya qofka haddii uu dembi galo ama haddii uu su'aal ay ka timaado hoggaansankiisa ama qofka inuu waddanka xidhiidhka uu leeyahay in kale inay ay iman karto inay ka saari karaan xildhibaan ahaan. taana runtii waxay u baahan tahay cod aad u dheer aad zaa'id u ah 3 meelood oo 2 taasoo dhowr boqol oo qof inay isku raacaan. hase ahaatee meeshan ma yaalaan arrinta Ilhan Cumar wax hadda maanta ay isaga casisho ma yaalaan. gabadhan xildhibaanada waxaan ognahay waxa ay tiri inay ahayd siyaabo kale oo badan oo loo turjumi karo way jiraan laakiin runtii inay sida badan ay u turjumeen in ay ku dhaliyaynaysay dad community gaar ah oo ah Jewishka in lagu tilmaamay arrinta lacagta ay ka hadashay. arrintina runtii maadaama saa loo qaatay way cafis bay dalbatay. waana waxyaabaha markaad Washington DC waxaan ognahay hadalladu waa meel aad looga tafasiro qof walba hadalka siduu yiri 100 nooc baa loo jiijiidaa. arrintaana dib mataqaana maadaama ay ku cusub tahay baarlamaanimada 2 wiig malaynaya ay wax la mid inay joogto waxyaabahaas waxyaabo mataqaana qof walba oo siyaasi oo Washington DC jooga uu baran doono. hase ahaatee meesha wax dhaliila iyo ceeb haba yaraatee ma jiraan. arrinta kale ee soo gali karta uu yiri inay guddiga arrimaha dibadda oo kale taa waa arrin u taalo qofka speaker of house-ka oo Nancy Pelosi guddigeeda haddii ay u arkaan inay arrintaas ay sababayso wadamo sida Israel oo kamid ay kamid tahay loo arki karo inay ma aragtay ay ku noqon karto conflict oo kale taana meesha ma yaalaan sabab ay assignment-gaas uga qaadaan ama uga xayuubiyaan ma jirto. baarlamaanimadana dee warkeed badaa waxa uu shacabkii doortay baa xilkaana ka qaadi karo. waxaa jira nin runtii Republicana oo Steve King la yiraahdo laga soo doortay Iowa oo arrimo aad xasaasi u ah oo racist oo ma aragtay arrimaha jinsiyadda ma aragtay dadka aad ugu waxaysan maalin dhawita ka hadlay wuu iska dhaga tiray ma uusan ka hadlin mar xataa su'aal laga weydiin wuxuu yiri arrinta anigu ma follow gareeyo arrinta laakiin Ilhan waxaad moodaa mataqaan inuu aad u jecel yahay aad u danaynayo. marka waxa weeye arrinta halkaan bay ayuu ku dhamaan doontaa. xildhibaan Ilhan Cumar ayaa laga soo doortay degmada shanaad ee gobolka Minnesota. We said we were going to fight the politics of fear and scarcity with hope. Dakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka. دكتور عبد الرحمن دعالي بيلي وزير كمالية الصومالية وقبت شركة جرائد باللها وحاو كدر سي حالة دقالها دالكا ميزانية السنة كان يعقبدها كتاغان عنشور بحينتا وزيركا ايا ugu دقنين اداقو جيديي قناعستادا عن بحين عنشور تحقا لوغو ليهي هاداي 10 عنشور بحيا جيران 20 aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyna oo anagu inta halka aan joogay aan gamba bixin yaa oo dad bay'am mushtariya maanta laga bilaabo cashuur ba bixinaysa dukaan ku furaanaya ma jiro business kale ku furaanaysa ma jirto yaa waxaan rabnaa waxa weeye yaa inaad cashuurta iska bixiso dadka doodu noo socoto halka inoo maraysa waa ogtihiin eedan magacaabi maayo
laakiin next time halkaan imaado wallahi waa idin magacaabaya waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed in cashuurtii diideen ayaan idin sheegayaa waxaan markaa leeyahay dood baa inoo socotee ilaahay baan idinku dhaariyay wixii cashuur leedku leeyahay iska bixiya haddii kale sharciga inoo dhaxeeya halka yaala inkastoo dakhliga dalka uu kordhayo marka loo eego sanadihii la soo dhaafay haddana lacagihii la filayay inay ka soo xaroodaan gudaha dalka oo ah 20 milyan oo dollar ayuu wasiirku sheegay in kaliya bishii ay ka soo xarooto 14 milyan oo dollar bishii kharashkeena waxa ku filan kharashka federal governmentka ilaa 20 milyan ayaa bishii ku filan waxaad iga markhaati tihiin inaad sanadkiina soo dhaafay mushaarkii la wada bixiyay sanadkii hore mushaarkii la bixiyay ya oo qofka Soomaaliyeed ee dawladda u shaqeeya ku tashanayo mushaarkiisu inuu soo galo oo intaasoo qoys reerkii ku talagelayo shaqada marka loo soo kalaho ee shaqadaasi dhamaato bishu markay dhamaato qofkii wixii loogu talagalay inuu dhameysto ya ayaa ma garanaysaa inaan ayaa ogtiin taasina tu soconaysa ayay noqonaysaa hadii la yiraahdo waxa markaa aan doonayaa inaan sheego 20 milyan waxa aan ka hayo ee gudaheena ka soo gala bishu ugu bato 14 wasiir Beyle waxa uu tilmaamay inay sameynayaan telefoon gaar ah oo loogu talagalay canshuur bixiyayaasha inay ku soo gudbiyaan caqabadaha haysta waxaan idin kula talinaynaa ama sharcigu yahay waxa weeye inaydaan cidna cashuur u dhiibin ee banka tagtaan banka tagisan maxaa lagu leeyahay inta waa isla hadlaysaan inta lagu leeyahay banka tagi waad soo dhigi warqadaada yar baad soo qaadan ninka booliiska ama ninka cashuurta qabta ee wasaaradda ka tirsan waa taa warqadadeedii baad oran haday wax ka yimaadaan telefoon waa sameynaa telefoon cusub baan sameynaa oo 2 number oo ku soo dhufato laga qabto magacaagana aan la ogaan cidina waxba ogaan aad noo sheegtaa hadii wax qulqulaasi jiro wada hadalka diin cafinta oo shirkiisa jaraa'id uu ku soo qaaday wareegiisa saddexaad oo la filayo in la soo gabagabeeyo bisha 4 ee Abriil sanadkan ayuu sheegay in rajo badan ay ka qabaan waxaase wasiirku uu ku daray in wali ay taagan tahay caqabada ah dakhli kordhinta oo kamid ah sharuudaha diin cafinta marka waa ku tala galsanahay xagga iyaga waa dhameynayna hadii la yiraahdo anagoo of course dadka Soomaaliyeed ka sugayna caawimada ugu weyn oo qofkii cashuur lagu inuu bixiyo laana mar walba waxay ku leeyihiin cashuurtiina way hooseysaa intaas GDP-giin yahay koridda dhaqaaliin intaas yahay waxyaalaha soo gala wadanka intaas yihiin remittance soo gala muxuu lacagta ka timaada muxuu inaan diaspora dadka dibadda jooga intaas ay tahay ya dhaqaalaha wadankiin intaas yahay cashuurtaad qaadana waa intaa leeyahay mar walba isku filaada baa leeyahay waxa iska bixiya cabdishakuur Axmed warbaahinta qaranka Dr. Abdirahmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo qabtay shirka jaraa'id ee billaha ah waxa uu ku darsay xaaladda dhaqaalaha dalka miisaaniyadda sanadkan iyo caqabadaha ka taagan canshuur bixinta wasiirka ayaa ugu horreyn digniin adag u jeediyay ganacsatada aan bixin canshuurta xaq loogu leeyahay hadday 10 cashuur bixiya jiraan 20 aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyna oo anagu inta halka aan joogay aan gamba bixin ya oo dad baayac mushtariye ah maanta laga bilaabo cashuur la bixinaysa dukaan ku furaanaya ma jiro business kale ku furaanaysa ma jirto ya waxaan rabnaa waxa weeye ya inaad cashuurta iska bixiso dadka doodu noo socoto halka inoo maraysa waa ogtihiin idan magacaabi maayo laakiin next time halkaan imaado wallahi waa idin magacaabaya waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed in cashuurtii diideen ayaan idin sheegayaa waxaan markaa leeyahay dood baa inoo socotee ilaahay baan idinku dhaariyay wixii cashuur leedku leeyahay iska bixiya haddii kale sharciga inoo dhaxeeya halka yaala inkastoo dakhliga dalka uu kordhayo marka loo eego sanadihii la soo dhaafay haddana lacagihii la filayay inay ka soo xaroodaan gudaha dalka oo ah 20 milyan oo dollar ayuu wasiirku sheegay in kaliya bishii ay ka soo xarooto 14 milyan oo dollar bishii kharashkeena waxa ku filan kharashka federal governmentka ilaa 20 milyan ayaa bishii ku filan waxaad iga markhaati tihiin inaad sanadkiina soo dhaafay mushaarkii la wada bixiyay sanadkii hore mushaarkii la bixiyay ya oo qofka Soomaaliyeed ee dawladda u shaqeeya ku tashanayo mushaarkiisu inuu soo galo oo intaasoo qoys reerkii ku talagelayo shaqada marka loo soo kalaho
ee shaqadaasi dhamaato bishu markay dhamaato qofkii wixii loogu talagalay inuu dhamaysto ayaa ma garanaysaa ayaa ogtihiin taasina tu soconaysa ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waxa markaa aan doonayaa inaan sheego 20 milyan waxa aan ka hayo ee gudaheena ka soo gala bishu ugu bato waa 14 wasiir Beyle waxa uu tilmaamay inay sameynayaan telefoon gaar ah oo loogu talagalay canshuur bixiyayaasha inay ku soo gudbiyaan caqabadaha haysta waxaan idin kula talinaynaa ama sharcigu yahay waxa weeye inaydan cidna cashuur u dhiibin ee banka tagtaan banka tagisan maxaa lagu leeyahay inta waa isla hadlaysaan inta lagu leeyahay banka tagi waad soo dhigi warqadaada yar baad soo qaadan ninka booliiska ama ninka cashuurta qabta ee wasaaradda ka tirsan waa taa warqadeedii baad oran haday wax ka yimaadaan telefoon baa sameynaa telefoon cusub baan sameynaa oo 2 number oo ku soo dhufato laga qabto magacaagana aan la ogaan cidina waxba ogaan aad noo sheegtaa hadii wax qulqulaasi jiro wada hadalka diin cafinta oo shirkiisa jaraa'id uu ku soo qaaday wareegiisa saddexaad oo la filayo in la soo gabagabeeyo bisha 4 ee Abriil ee sanadkan ayuu sheegay in rajo badan ay ka qabaan waxaase wasiirku ku daray in wali ay taagan tahay caqabada ah dakhli kordhinta oo kamid ah sharuudaha diin cafinta marka waa ku tala kalsanahay xagga iyaga waa dhameynayna hadii la yiraahdo anagoo of course dadka Soomaaliyeed ka sugayna caawimada ugu weyn oo qofkii cashuur lagu inuu bixiyo laana mar walba waxay ku leeyihiin cashuurtiina way hooseysaa intaas GDP-giina yahay koridda dhaqaalihiina intaas yahay waxyaalaha soo gala wadanka intaas yihiin remittance ka soo gala muxuu lacagta ka timaada muxuu inaan diaspora dadka dibadda jooga intaas ay tahay dhaqaalaha wadankiina intaas yahay cashuurtaad qaadana waa inta leeyahay mar walba isku filaada baa leeyahay waxa iska bixiya Cabdishakuur Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho.